markii ugu horeysay waxaa Baydhabo lagu tijaabiyay oo lagu beeray nooc kamid ah bariiska la beerto. waxaa hawshan tijaabisay maamulka jaamacadda Zamzam University faraceeda Baydhabo. deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo noqonayso markii ugu horeysay oo tijaabo bariis laga sameeyo ayaa dadka beeraleyda waxa ay aqoon u lahaayeen oo ay beeran jireen waxay ahaayeen masagada, galeyda, digirta, sisinta, looska iyo abuurka kala duwan ee khudaarta. madaxa jaamacadda Zamzam University oo ah meesha bariiska lagu beeray ayaa u arkay in deegaanada Koonfur Galbeed bariis lagu beeran karo tijaabo ay sameeyeen oo ay ku guuleysteen. maamulaha jaamacadda Dr. Aadan Cabdi Isaaq ayaa sharaxaya sida ay uga dhiiradeen inay sameeyaan tijaabada bariiska oo ay ku beereen jaamacadooda. geeka may baahanay qaar kamid ah dalagyada jaamacadda oo ku tijaabini Koonfur Galbeed aan degmada Baydhabo gaaraan jaamacadda Zamzam Science and Technology geeka may baahanay waan guuleysteen bariis markii koreyti Koonfur Galbeed laga beer oo maray dalagyada laamo oo maalin walba lacag ka baxas in ka badan bulshada isticmaalaysa bariiskan fiistuugi hadda iyo guuleysay successna geeka dadkan bandhigni deegaanka Koonfur Galbeed kuna gaaraan degmada Baydhabo bariiska 4 bilood ka baxay mayna ambaanya bi badan ambaanya oo nada abuurni ka baa 4 bilood ka baxay oo busineer sir hamroon 5 bilood 5 ilaa 10 maalmood sidoo askariya ka baxay 5 ilaa 6 maana Amerika sheene Amerika dambeetu 4 bilood oo buusitoon maana meeray nagaday kolaam koro diyaarsan geekana may baa ambanay bariiskaas oo aasoo iyo danfeelo deegaanada la markoon asal shay miraashi may la kasheenahay jawhar oo meeray si waqti meelan ku miimsano horraanka jirta ka waray tan may guulaysan deegaanada Koonfur Galbeed bariis la ka war koro aan la aamay bariiskuna saarina dadkii ka qayb galay argan ini meeray deegaanada Koonfur Galbeed bariiska bakor may kala tan beertada kale oo suun meeray tijaabine kamidiyay kale oo noo iidan faylo suun oo deegaankana firshay ku cusub marka bariiska ayaa u baahan waraab fara badan. waa aqabada kaliya uu leeyahay beerista bariiska maadaama beeraleyda ay ku tiirsan yihiin roobka. laakiin qofka beerta bariiska waa inuu ku tashadaa in maalin walba waraab ugu baahan yahay sida uu mar kale sharaxayo Dr. Aadan oo isaga tijaabadan sameeyay. markaas dartee waa bariiska biin baani dhulna oo feeray ka baawna baani laakiin Koonfur Galbeed kasta oo ka diyaari ka baakor armidow iyo la kashay dhulkooda markii la diyaariyay idin bilisay maalmo koreyti maalin dhaafam maalmo ka bilisay markii miraasheenina maalin kaas yal waraabiyay markii miraash dhameystiray bislaaday diyaar nagdina biyo kurojini aadi soo marka dambe ngajigi geekana soo dhorno oo shilduun oo maana soo beertay kala soo laxjeer soo fanjile diyaarsiiso maray goloftiska jartii habandhigni. aqoonyahan Awees oo kamid ah aqoonyahanada ka qayb galay bandhiga bariiska lagu sameeyay ayaa sheegay in beeraleyda loogu baahan yahay inay ka faa'iideystaan in bariis lagu beeran karo deegaanada Koonfur Galbeed. wuxuuna amaanay dadkii sameeyay tijaabadan ee bulshada u soo bandhigay guulna ay ka gaareen. idintiida haato meelkaaba kigaana haato beer tijaabada yani tusaalada qaada xadadkii oo kulida beeraha bandhigay laakiin dhammaan kulida kalena saasay u tiri caafimaad haato naasin haato إدارة حتى ينبه مجال صباحي صبي كوري مركا منكم سلام مرتين الرد على المحاضرة لما يسمى كلمة الجديدة ليالي عامل ولا جيجي لدلائي لفوفو كذا. tijaabada jaamacadda sameysay kaliya ma ahan tijaabada bariiska sidoo kale waxay tijaabiyeen inay beeraan qamadiga oo hore loogu aqoon in lagu beero deegaanada Koonfur Galbeed. Shukri Ismaaciil Axmed, RTN, Baydhabo Janaa'i.